runtii farxad iyo qiimo weyn ayay igu fadhisaa maanta inaan qalin jabinta dufcada shanaad ee jaamacadda Somville aan joogo waliba ayadoo ay tahay xilli dadka oo dhan ay hadda dawladda xukuumadda baarlamaanka ay idin heelan yihiin waxaa sharaf ii ah waliba aan ku farxayaa qaranka Soomaaliya inuu helay jaamacad ama kulliyad lagu barto kulliyadii ugu horeysay ilaa hadda ka jirta ee petroleum inay keento jaamacadda Somville qayb galno qalin jabintii shanaad ee jaamacadda Somville saan u jeedno arday aad u qurux badan oo aad loogu soo dadaalay oo wax soo bartay ayaa halkan maanta lagu abaalmarinayaa marka jaamacaddii ka soo shaqaysay oo ugu horeeya gudoomiyaheeda macallimiintii iyo waalidiintii ardadan soo garab istaagay intay safarkan ku soo jireen iyo ardada naftirkooda oo soo muujiyay dadaal hagar la'aan leh waxaan idin leenahay hambaliyo 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 farxad iyo reereen anigoo ku hadlayo magaca haweenweynaha Soomaaliyeed inaad ugu casuuntaan maanta munaasabadan qiimaha badan waxaan rabaa marka hore inaan u mahadceliyo u hambaliyeeyo hooyooyinka iyo aabbayaasha dhalay ardayda quruxda badan ee maanta ka qalin jabinaysa dafcadda shanaad ee jaamacadda Somville waxaan ogahay meesha ay soo mareen tallaabooyinka ay soo qaadeen iyo siday ugu soo halgameen inay soo gaaraan maanta oo kale oo ah maalin farxadeed maalin aad u gol joogto wiilkaaga oo qalin bedelanaya ama gabadhaada oo qalin bedelanaysa miisaanka iyo culayska iyo qiimaha ay ku fadhido qofka waalidka ah baa garan kara waxaan farax gelinayaa wasaaradda batroolka in jaamacaddan ay tahay jaamacaddii kaliya ku dhiiratay ee bilowday qaybta waxbarashada petroleum engineering shantan arday sanadkan nasiib u yeelatay iyo 60kii hore nasiib u lahaaba waqtigoodii waa la joogaa dhalinyarada Soomaaliyeed wiilii gabdha waxaan ku boorinayaa in loo jiheysto dhinaca petroleum waa wadanka u baahan adinka u baahan shirkadaha ajnabiga ay iman doona wadanka wasaaradda kaliya ma aha waxa loo shaqo tagay dadka maalgashadayaasha caalamiga ah ee maanta ku dhiiraday iyaguba inay wadankan petroolkiisa oo 60 sano la noo sheegay ku dhiiraday inay investment ku sameeyaan ee maalgelintoodaasna kaga dhabeeyaan inay petrool ku soo saaraan xaqiiqatan insha Allah dhalinyaradan nasiibka u yeeshay iyo jaamacaddan sida guud iyo sida gaarka oo nasiib ugu yeelatay inay ku dhiirato fildigan inay xooga saarto waa ugu mahadcelinaynaa ka wasaaradahan waa ugu mahadcelinaynaa waliba si gaar ah dhalinyaradan nasiibkaas ay leeyihiin maanta waxa idin sugaaya oo idin kugu soo dhaweynayaa wasaarad diyaar u ah in petroolka iyo petroleumka iyo guud ahaan injineeriyadaas ku saabsan wax soo saarka kheyraadka diyaar idin ah shirkadaha caalamigana waa soo socda idinkana waa idin bishaaro laakiin dadaalka meeshiisa ma joogayeen waraha loo sii socdo ilaa iyo meesha ugu dambaysa waxbarashada laga gaaro waa mahadsan